Gaaska dabiiciga ahi waa qayb ka mid ah ku dhowaad dhinac kasta oo nolol maalmeedkeena ah. Waxaa loo isticmaalaa kulaylinta, karinta, korontada sida shidaalka baabuurta, bacrimiyeyaasha iyo samaynta caagaga. Gaaska dabiiciga ahi waa mid si dabiici ah u soo baxa oo aan la cusboonaysiin karin ee ka samaysma dhulka. Inkasta oo dhulku leeyahay gaas dabiici ah oo aad u tiro badan, intiisa badan waxa ay ku yalaan meelo ka fog halka looga baahan yahay. Si loo fududeeyo dhoofintiisa loona yareeyo mugga gaaska dabiiciga ah, ayaa inta badan loo beddelaa gaasta dabiiciga ah ee dareeraha ah. Inkasta oo ay jiraan dadaallo caalami ah oo lagu dhimayo ku tiirsanaanta gaaska, hase yeeshee isticmaalka gaaska dabiiciga ahi waxa uu gaadhay heerkii ugu sarreeyey abid. Qiimaha gaaska dabiiciga ah ayaa kor u kacay tan iyo markii Ruushku soo galay Ukraine, taas oo uga sii daraysa xaaladda. Taas waxaa ka sii daraysa Moscow waxa ay hoos u dhigtay gaaska loo dhoofiyo Yurub ilaa sannado badan kadib markii ay cunaqabatayn ku rideen Ruushka, Midowga Yurub iyo Maraykanku. Haddaba daawade muuqaalkan waxaan idiinku soo gudbin doonaa 10 waddan ee ugu wax soo saarka badan caalamka gaaska dabiiciga ah ee daawasho wacan. Kaalinta 10aad, waddanka Aljeeriya. Aljeeriya ayaa ah waddanka 10aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, waxayna soo saartay gaas dhan 100.8 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 2.5 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 9aad, waddanka Norway. Norway ayaa ah waddanka 9aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, waxayna soo saartay gaas dhan 114.3 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 2.8 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 8aad, waddanka Sacuudiga. Sacuudiga ayaa ah waddanka 8aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, wuxuuna soo saaray gaas dhan 117.3 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 2.9 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 7aad, waddanka Awstaraaliya. Awstaraaliya ayaa ah waddanka 7aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, waxayna soo saartay gaas dhan 147.2 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 3.6 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 6aad, waddanka Kanada. Kanada ayaa ah waddanka 6aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, waxayna soo saartay gaas dhan 172.3 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 4.3 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 5aad, waddanka Qatar. Qatar ayaa ah waddanka 5aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, waxayna soo saartay gaas dhan 177 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 4.4 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 4aad, waddanka Shiinaha. Shiinaha ayaa ah waddanka 4aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, wuxuuna soo saaray gaas dhan 209.2 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 5.2 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 3aad, waddanka Iiraan. Iiraan ayaa ah waddanka 3aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, waxayna soo saartay gaas dhan 256.7 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 6.4 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 2aad, waddanka Ruushka. Ruushka ayaa ah waddanka 2aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, wuxuuna soo saaray gaas dhan 701.7 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 17.4 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Kaalinta 1aad, waddanka Maraykanka. Maraykanka ayaa ah waddanka 1aad ee ugu wax soo saarka badan caalamka, wuxuuna soo saaray gaas dhan 934.2 bilyan oo mitir kiyuub sannadkii la soo dhaafay, taas oo u dhiganta 23.1 boqolkiiba wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ee caalamka.